khad cagaaran ka dhigi doonaan oo ay gudaha Soomaaliya u geli doonaan amniga deegaankana ku jira xaqiiqada taalana waa mid ah madaxweynaha deegaankuna wuu sheegay annagu gudoomiyaha beledweynaha hadlay warka ma sugayno yiri amniga annaga saan u qabsanayna annaga naqaana hadalkaasaana xaqiiqa ah waana cadow Soomaalina cadow ku ah deegaankana cadow ku ah al-shabaab afka wax weeyaan laga leexin wiilkan Soomaaliya daayro ku salaamaya markuu waraysa salaan kadibna waxaan arintan dafkiri ka dhibtay waxa weeye waxaa la yidhi nabar la filay naxti ma lah la yidhi mogtahay marka arintan iyadoo dhicinba oo lasoo hadal qaadinba oo nimanka ay saymaanba baa waxaa magaalada ku jirtay xan ku jirtay in ninka la yidhaahdo koonfur galbeed ninka madaxweynaha ka ah iyo gruubkii farmaajo ee hore inay raadinayeen isbays siyaasadeed iyo meel ay ka helaan mataqaana ayaga iyo Ethiopia ay isku salaamaan oo halkaa ay cadaadis siyaasadeed ee dowladda cusub ku sameeyaan waxaan hore uma dhicin warkaasna magaalada uu ku jiray aad ugu jiray idoo waxaan ba dhicinba nin iga horreeya wuxuu yiri dowladda dhexa ka dambeysay yiri dowladda dhexa weli access siyaasadeed ma wasamaynba mataqaana boqoshooyinka ay ku tagayso wadamada ay ku tagayso waa boqoshooyin macnaha yani aan siyaasad ku dhisnayn laakiin ku dhisan xiriir soo celin laakiin wax access weli lama samaynin oo macnaha dowladdu ma samaynin midda kaleeto waxaa dareemaysaa in arrinkan jirto dhammaan dadkii taageeri jiray nabadii nolol taageeri jiray waxay hadda ku leeyihiin shalay meeshii xashin ay ku ceyn jireen oo lahaayeen gabro hoos fadhiya gabar 4 sano hore saasay ku ceyn jireen hadda maxay leeyihiin waan Ethiopia la heshiiya oo Ethiopia goorma la dagaalamay goorma dowladda cusub goorma Ethiopia la dagaashay goorma statement ka soo baxay Ethiopia ay kula dagaalamayso waa su'aal meesha ku jirta kow ay dowladda waxay qaadatay la akhrin karo oo ah oo leeyahay ka mid ahayd macnaha wasaaraha iyo madaxweynahaba in dowlad dadka heshiis la ah adduunka heshiis la ah wadamada deriskana heshiis la ah taas ahli ku dhigeedu uu yahay dadka hadda soo cartamaya raba inay guul ku gaaraan yani waxaan u sheegaynaa horta dadka maanta ra'iisul wasaaraha ku guuleystay oo deegaankaasna u badan majority-na ka ah madaxweynahana ka ah waxaan leenahay war jambal siyaasadeed oo qaldan yaan laydin tuurin waa midaas aan leeyahay jambal siyaasadeed qaldan yaan laydin tuurin waxaan idin sheegaynaa in Ethiopia iyo anagu wax xurgufo ay naga dhaxeeya in jirin nimanka maanta la dagaalamayna cadaado iyo mataqaanaa iyo galmudug wixii loogu geystay maalinlawad waa garanay waa arkayseen indhiina shanta inta qoryahoodii iyo hubkoodii meesha la soo dhigay waa arkayseen cid saaxiib la ahay ma jirto ummad Soomaaliyeed way ka wada go'an tahay nimanka in la iska dhiciyo laakiin waxaa muuqata in siyaasad qadar aad lugaha la gasheen oo Ethiopia wadatay oo Abiy Ahmed wadatay in lugaha la gasheen oo halkaasna aad ku seegteen in la jaan qaadaan isbedelka cusub ee Soomaaliya ka dhacay iyo isbedelka siyaasadeed ee maanta Soomaaliya ee mataqaan la kaga baahan yahay inaad ka qayb qaadataan ninka la yiraahdo waaya waxaan siinayaa ninka kale soo galay Cabdikariim Cabdikariim daayir oo ku salaamay barada marka hore adiga dhamaan inteena daawanaysa waa ka qaaday mar haddii aan ka hadlo arrimahan ka dhacayo Soomaaliya sida ani qaasaan ay ila muuqato waa mid uu ka dambeeyo Mustafa Cagjar laguna danaysanayo la rabo in xuduudaha Soomaaliya ay gudaha u galaan ciidamada New Police Ethiopia ay rabto dhul balaarsi qaasatan ay ka rabto deegaanada koonfur galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug oo xuduudada la wadaago Ethiopia waxba yaanan meelo kale la qabsanin siyaasadaasna waxa ka dambeeya Abiy Ahmed wuxuuna u soo adeegsaday Mustafa Cagjar oo sidoo hadalku u dhigay waa u jeeday ummadda Soomaaliyeedna markhaati ay ka tahay marka Soomaalida kililka shanaad Mustafa Cagjar hogaamiyo waxa loogu talagalay in Soomaaliya loo adeegsado wax kale uma dhisno marka waa ninkaas way maqashadaan yaa kuma waa boqorkii ma jeerteene waa sugaya okay hay ku socod boqorkii ma jeerteene ninka waa maqlaysaa hadalkiisa Cabdikariim daahrow waxa weeye inuu arrintan waa siyaasadda cusub ninkan ka soo riixay si loo soo riixay arrintan hadda xurguftan cusub waxa keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka weecday macaamilkii Ethiopia iyo darisnimadii naga dhaxaysay haddana
walaal Soomaaliya waa meel ay isku haystaan laba dowladood dowladda Masar iyo dowladda Ethiopia marka inaga Masar wayna ka fog tahay xuduud lama lihin shan dowladood baa noo dhaxeeya marka muhiimaddu waxa weeye Ethiopia waxaan soo xisboonaaday maca filinkan nimankan dhalinyarada ah waxaan wax la aawilay weeye oo gudaha Ethiopia la geliyay si iyaguna u soo galaan gudaha Soomaaliya moogtahay oo soona uga samaystaan marka waxaan waa filin waana dagaal bilowgiis waaya sida ka soo Maxamuudka wala maqlayaa soo si fiican baa lagu maqlayaa yo arrimahan waa soo koobaya arrintan dhacdadan cusub anigu kulli waxa aaminsan horta waa arrimo siyaasadeed sida xaqada oo iska cad sababtoo ah nimankan al-shabaab dhowr iyo 10 sano jireen oo sidan hadda yihiin ay ka awood badan yihiin weligoodna qorshaha hadda ay sameynayaan iskuma aysadeen maantooda ay iska tabaryar yihiin in ay isku dayaan inay Ethiopia galaan ay saldhigyo ka samaystaan waa arrimo horta siyaasadeed cidda ka dambayso hadda lagu eedeyn karana anigu sida xaqada waxay la tahay dowladda Masar oo dagaal baan ay kala dhaxayso Ethiopia inay arrintaas ka dambayso ayadoona ka faa'iideysanayso dowladdan hadda cusub oo ay la leedahay xiriir dhow ay la leedahay hadda anigu ma dhahayo dee Xasan Sheekh iyo Mahad Salaad baa arrintaas gacan ka geystay ma dhahayo laakiin markay meesha ka baxdo isla shaqayntii labada sirdoon oo sirdoonka Ethiopia iyo sirdoonka Soomaaliya hadayna isla shaqaynayn oo xiriirkoodu go'an yahay waa laga faa'iideysanayaa wax walba la sameynayaa noo markaad anigu waxay la tahay arrintan inay ka dambayso dowladda Masar oo ka faa'iideysanayso xiriirka labada dowladood codkaan ay dhageysanayaan maxaa laga wadaa in Ethiopia hadii ay sax tahay dagaalkan ay hooda shabaabka in dad fanaaniin iyo Toob Mustafa Cagjar baawur saara ay ka soo waramayaan in waan joognaa meel hebel baan maraynaa dhageyso raadiyo baragay salaamaya dadkiga badaniyo hadda goday baan joognaa ciidankii wax maqan ma laha madaxweynaha hogaaminayo toddoba baawur oo ciidan aan wateen hadda ka daba imaaday goday hadda soo galay madaxweynaha ciidankiisana way goreeyeen kulli hadda goday madaxweynaha wuxuu dhahay meetii baa yaallo meetii baan xawaalan ilaa 50 nin bay naga dileen oo qof kale ku jirin oo reerkiya ana iyo kulli xaaladda ayagana bartan laba nin baa hadda aan ka dilay بس محمود ما قال له قال لا تضمن قالنا ولا كقمني اسوارنا وكان عرض شيء أرنت بقى لاني أنا غير إنجلي أنا وربقى على قبته توا الباني الدور سبتي بحين عينك اللي بولسكي وليه طلبة وتجا وطا واحد ماشي كسر روايد مع الجري ما بيقان توه الجماعة قال يقولوا وان جملة يقولوا داير horta ninkan waa nin iska hadlayo wiyo laakiin Mustafa Cagjar ma soo raacnaa arag sawiradiis ninkan horta ninkan waa nin iska hadlayo nin xigmad ku hadlaya ma ahan waxa shaqadiisa ahayn buu ka hadlayaa Mustafa Cagjarno wax badan ma dhaamo sababtoo ah Mustafa Cagjar qorshe siyaasadeed oo Soomaaliya ku galo ama ma yeelan karo waa nin Ethiopia ay xukunto haway wixii loo soo dhiibay buu sameyn karaa niyo marka arrintan dhacday waxaan xasuusanaa ciidamada Kenya markay Soomaaliya soo galayeen inay marmarsiyo u heleen gudaha Kenya laga afduubay gabdho iyo wax haddana waxay la tahay Ethiopia in ay heshay marmarsiyo ciidamada aan amisoon ahayn oo sharci darro ay ku soo gelisay Soomaaliya haddana waa ognahay labada dowladood calaaqaadkooda ma fiicno marka anigu waxay la tahay arrintan inay dhibaato keeni doonto Soomaaliya gaar ahaan gobolada xuduudka la leh oo Abiy Ahmed uu soo gelin doono ciidamo aad u fara badan oo sharci darro ah niyo marka muhiimadu waxay tahay madaxweyne Xasan Sheekh waa maanta madaxweynaha mas'uuliyadda say saaran tahay hal ku dhagiisina wuxuu ahaa Soomaaliya heshiis dunida heshiis la Soomaaliya dunida heshiis la dil raadinayo dariska weyn laga raadiyo way number 1 Masar oo ognahay masaafada inoo jirto oo calaaqaad عادي أنا يارنو أما جناعسي وحلا ميدا إيو وحبرشة ما أنا هذا عن مهم عن نوعين أنا واحد يعلم مهم سن إن إثيوبيا على عقد لازم يصابته إثيوبيا ودولت نقنحن وأجنهي هذا مرة كلها تجاش فريقين بسمعين سا هذا الدنيا بما هو رتجي الشيء وين أو حتى يكون جرته هو بلا صحيح حتى
lafta gareen baa u socdo marka madaxweyne xasan sheekh siisi inuu la saaxiibo abiy axmed inuu la saaxiibo bay dantiisa iyo danta waddanka iyo danta soomaaliyeed ku jirtaa waaya sida maqul anta fikirkaas ninka hadlaya sadawi aniga wa haye cabdikii masada maqul anta may madax haye sababtoo ah waxay tahay balaanka hadda socdo ma ahan mid siyaasad Masar ku xiran waa dana ay wadato dowladda Itoobiya looguna talagalay in dowladdan Xasan Sheekh lagu burburiyo sababtoo ah ninkii xilka ka horeeyay ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli taladii uu hayaa asoo dibad joog ah waxaa la shaqeeya dad hooso oo weli dowladdii ku lifaaqsan oo ka mid ah ayaa si hoose ula shaqeeya marka Mustafa Cagjar inuu yiraahdo Soomaaliya xuduudeeda inaan weliba aan ka gudubna ayaan gudaha galaynaa waxay ku tusaysaa in arrintaas oo Abiy Axmed oo gadaal oo dab kaga shidayo basiin loona adeegsanayo Soomaali loo adeegsanayo sida ciidamada kilalka shanaad ee New Booliska ah waxaad arkaysay ayagoo xuduudaha ka gudbayo oo gobolada Soomaaliya galayo oo ku soo xidgudbayo oo dhahaya xataa gudoomiyaasha gobolada sida gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo kale inta waan xireynaa iyo waxaas wax political ka waaweyn waaye ma ahan wax loogu talagalay waxaa la rabaa mar dhowna in gaduudna maaragtay xuduudda laga soo dhoobo ciidamo Hiiraan laga dhoobo aysan isku gudbin dadkan reer Muqdisho ee dowladda madaxda ka ah aysan dhaqdhaqaaq u sameyn la rabo in la curiyaamiyo in la curiyaamiyo ka bacdina la rabo farmaajo oo dadban in la soo celiyo ma garad haye maxaa dhacay daahirow horta haddii dowladda cusub timaado waxa isbedela siyaasadii arrimaha dibadda ay kii hore ku socotay dowladaha caalamka mar kasta siyaasadooda arrimaha dibadda isma bedesho qof kasta oo yimaada laakiin innaga Soomaali ahaan waxay ku xiran tahay xukuumaddaas cusub oo timaada marka xukuumadda cusbeed oo timi marka koowaad qofkii la magacaabay wuxuu noqday Mahad Salaad oo in badan loo xaglinayo inuu Masar wax ku soo bartay inay dowladda Masar taageerto ah madaxweynaheeni Soomaaliya wuxuu booqday dowladaha gobolka oo dhan markii laga reebo Itoobiya dariska noogu dhowna waa Itoobiya colaadha naga dhaxayso laakiin dan badan baa naga dhaxaysa maxaa yeelay dad Soomaaliya bay naga gumaystaan oo naga hayaan siyaasaddeenu way isku xiran tahay marka waxay ahayd madaxweynuhu orolihiisa wuxuu doorashada ku galay Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah waxay ahayd xiriirka Itoobiya Djibouti iyo Eritrea waxa iyo ilaa Kenya inuu hayo isku hayo bay oo dalka isku hayo dadka gudaha oo Soomaalida ka hayo ama qasab boqolka ma jirteen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا قلني نوع كلام كيجي يا ديل هاي رهضو وأنا جيستي مدحوينها كل الكشنات هو أيام ضر هويان نكني يقف كستو كل الكشنات أما صومالي إثيوبيا ما صومالي ذن درس كلا صومالي هذا إثيوبيا كشجعنا سما كيا كشجعنا سا مركي ay soo galayeen kuwa Kenya kuwa Soomaalida Kenya ama madaxdoodu way taageereysay adigoo haddana adiga ay muwaadin ku leeyihiin kula sheeganayaan dalka adigu sharcigaagu uu qorayo Soomaali weyn iyo Soomaali oo dhan inay wada leedahay taas weeyaan caqabada meesha ka jirta berrina dalka uu sheeganayaa imika ilka casaqays codkiisa siday hogaamiyuu sheeganayay taliya ciidan 7 gaadhi wata shalayna waxa uu dad u dilo inta sheeganaya oo dimbi kullu qofka toorada inta aan dilnay oo leey ama sanadka qorna isagoo ciidamo Soomaaliya oo jooga Kismaayo haddana hogaaminaya ama la socdaan warkaynay Soomaalinimadu dalkii xuduud buu leeyahay waa la aqoonsan yahay Soomaalinimada ama dadka waddanka lehna waa inay xuduud yeeshaan for example anigu reer Somaliland baan hay 60kii wixii reer Somaliland haban sharciga ka dhignay haddii dadkan koonfureed 60kii ay ka dhigaan 60kii 90kii nin aan ugu nimid baarlamaanka ahaa laga xisaabiyo ama 60kii wixii Soomaaliya deganaa wax ka soo bixi jiray haddii la yiraahdo intaas un baa Soomaaliya walaw kan annaga aan sheegano baynagu oo ma go'ay haba oranina waade midnimada Soomaaliya labada gobol baa ku ekaato laakiin Soomaalida kale aan waxay la tahay qasaaraha ay koonfurta ku hayso weeyaan ay marna cadowga u soo raacayaan oranayaan gudaha lagu duulayaa loo soo raacayo marna kuwa Kenya loo soo raacayo marna
dee waxa weeyaan waynu ognahay waxoo dhan waynu ognahay madaxda soomaaliya haysta kuwa jubbaland haysta kuwa haysta maca ra-iisul wasaaruhu dee wuxuuba shalay etoobiyaan bay ahaayeen ama etoobiya day joogeen maantana waa wada soomaali waxaanad og tahay mustafa cumarka halkaa ka lahaa maanta caynkaas inuu haddana marka xaggaa wax lagaga soo sameeyo uu soo cararayaa xamar buu imanayaa soomaali buu kula sheeganayaa daahiro waxaa dhibaatadii ku haya xitaa kuwa somalilan ka yimi xildhibaanada sheeganaya kuwan soomaali weyn ka yimi soomaali weyntaa horta meeshan koonfurta dhibaatada ku haysa aynu sheeganoba labadeeni gobol laakiin laba gobol ha midowda laakiin xuduudda raaca taayada sheegtaba laakiin tan kale iska gura dadkii qaxoontinimada kusoo galay maanta wada muwaadinka ah ee ninkaas kaa Syria kaa sareeya Syria ayaad maqlaysaa war inaad aad baan ku salaamay daahirow inaad horta wax meesha galay horta waxay ahayn al-shabaab bay ahaayeen calamadii waad arkaysay waxa weeye qaraxyadii waana la soo afjiray oo si geesinimo leh oo raganimo leh baa nimanka new booliska ay ogaadeen si fiican bay u soo afjireen marka anu waxaan leeyahay waxa ka dambeeya nimankan waxay moodeen Soomaaliya oo kale moodeen meesha dowlad deegaanka ka bacdina waxay kala soo kulmeen waa la ogyahay waxaana siyaasad xumada xasan sheekh maxamuud oo adduunka horta meel markaad dad la heshiinaysid horta dadka deriskaaga ah ama dowladaha deriskaaga ah horta waxa weeye ugu horey oo la soo heshiin laakiinse masar masar waxbarasho iyo xaduudna kama dhaxayo waxbarasho iyo wax kale siyaasad yaa inaadeer mutaasaan bata inaadeer ma nin warsigaliyaana ma garanaysaa warsigaliyaata waay daahiro inaad romaasidi ba halka wuxuu lahaa ciidamada tan waad ogtahay waa niman ciidamo waxa weeye gaashaaban maartay new booliska ninkii hadda halka aad kor waatay hargeysa markay gubatay markiiba waatay yimaadeen oo damiyeen oo u soo gurmadeen nimankii jigjigo u soo gurmadeen oo damiye bay ahaayeen nimankana inaadeer waxa weeyaan waxa aaminsanay Soomaaliya hadda yimaadaan inay new booliska hadda laga saaro Itoobiyaankan iyo waxa kale maartay dadka kale oo Kenyaanka laga saaro new boolis hadii la keenay maanta in al-shabaab Soomaaliya ka taliyeen oo nimankaas niman jawaab ka bixin kara yihiin garanaysa balan waa aaminsan nimanka new booliska in Soomaaliya la keeno ay say shalay u xasuuqeen al-shabaab kan u xasuuqaan balan waa aaminsanahay waaya ninkaas ka sareeya Syria maha aye السلام عليكم داير ولا لو سلام يا وعليكم السلام horta waxa weeyaan anu waan ku dhageysanayay maanta waan ku dhageysanayay aan laba anu kala qaasa hada wiilkan yar ee hadlayay ee codkiisa soo dhigayso waa wiil ma taqaanay aan wax war haynin waa wiil iska socda waa wiil dhalinyarta iskala socda waa wiil ciidanka iskala socda oo iska hadlay ma garan laakiin sharciga uu leeyahay fiir meesha ciidan baa laga hadlayaa ciidanku waa ciidan qaran baa leeyahay kuwa reerkeena ahoo intameeyaa baa laga dhintay iyo todoba baabuuraan wataa oo tinka iyo afartii labaan dil waxa inuu yiraahdo yaa u fasax taasu de waa waligiiba waxa uu iskaga heesi jiray meesha horta wax la hees meesha hees ma taalo meesha naf baa ku baxday dad lagu xiri karo Mareykanka lagu xiri karaa oo Yurub lagu xiri karaa oo Kenya lagu xiri karaa oo hadda dowladda Itoobiya xiri karta sababtoo ah dib uu ku hadlay maya wiilal badan hadda Facebook ina daawatay mooyaan wiilal badan oo reerka ah oo wadanka u dhashay baa arrinka ku qabsaday oo yiri inaad arrinka ka hadasho ma ahayn inaad maqashay baan u maleynaya laakiin nimanka ciidanka booliska ciidan taqaanay waa ciidan Soomaaliyeed waa ciidan cid walba ciidan qabiil maaha waa ciidan ma taqaanay intaas oo deegaanka kooban deegaanka waa taqaanaa Itoobiya intaasoo qabiil baa degan intaasoo gobol weeyaan ma taqaanay dadkaas oo dhan ciidankoodii baa wadanka u halgamaya oo afdheer kaliya ma halgamayso ma garatay marka reer afdheer isaguna afdheer maadaama oo uu u dhashay oo uu reer afdheer yahay buu is cadeynaya wuuna cid ku haysata ma jirto awal buu ku heesi jiray waa wax ka soo fakatay waa canjireed ka soo fakatay dib male waana reerkoodii dadkoodii baa ma taqaanay u jooga wax dhiba male marka in adeer waxaan ku dhilaa horta iyada taamar dambe soo qaadan iskeylo wiilkaas waa wiil khaldamay waa wiil ma taqaanay ciidan ka hor dhacay waa arrinkaas arrin khaldan buu ahaa laakiin al-shabaab waa waxa wadanka ku soo duulay waa al-shabaab waa ma taqaanay niman soo abaabulay oo soo galay wadanka laakiin ciidanka liyu boolisku sida ay maanta u xakameeyeen hadii ay dawladda Soomaaliya isku raacdo u xakameyn lahayd waxaan aaminsanahay khalad dambe kama dhiceen Soomaaliyana gooniba u istaagi lahayd wadan jiray noqon lahayd wadan xuquuqdeeda u dooday noqon lahayd wadan la isku qarxiyay may noqoteen hadii la isku raaco maanta waxaad ogtahay wallahi jijiga ilaa gabdhihii ilaa iyo cid walba inay ma taqaanaa qof walba wixii hayay intuu dhiibay inuu yimiday baad ogtahay oo intaas oo meelood la sameeyay intaas caadi loo dagaal qofka ka koreya Syria soo bal inuu ku noqdin kara tani taagu waa maasanta daahirow
aniga fikirtaas ka duwanaan qabaa waxaan qabaa waxa keenay yacni maanta in ciidamo Ethiopia xadkeeda ay galaan waxa ka dambeeya waxaa waaye waa dowladdii hore sababtana ku raacina sababta waxay tahay xasan sheekh wuxuu tegay Tanzania magaalada Arusha si uu yacni ugala hadlo in lagu daro yacni East African Community Soomaaliya shuruudahana waxaa kamid ah sidaa ogtahay in xuduudahaaga yacni ay yihiin xuduudo controlan oo waxa ka baxaya ogtahay marka dowladda Soomaaliya si yacni natiijada siyaasadeed ee dowladda xasan sheekh uu hirgelin waxay sameysay in yacni shuruudaas mid kamid ah in yacni dadka tusto dowladda diriska ay tusto in xuduudaha Soomaaliya ay yihiin xuduudo open ah si yacni Soomaaliya ay ugu mid noqonin East African Community oo loo dhaho baaba kana shabaab xuduudaha ka soo baxaya soo dhaafay ayadoo shabaab taasna waxaa sii cadeynaya Fahad Yaasiin maqaal qoray oo uu leeyahay arrintaas yacni ha loo dhigulaado dadka dhan oo caliyeer dhammaan waa dadkii ugu afdheera waa nabadinol waa dadkaas maanta dadka yacni arrinta buubuuninayo marka meeshaas waxaa ka cad in East African Community darteed xuduudaas loo dhaafay wax ka jirin